السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سودو هذا مركله برنامج كله يكستا تي في برنامج كنا مانتا إن شاء الله تعالى وحنكو قاعدة ديك دونا إن state department دالكن مريكانكا أو صورتي جريء completely in at online كا at أوجب بحسن كرتو باسبور كاجا renewal كيسة markii uu ka dhaco 10 sano ay ka dhamaato halkii aad tagi jirtay post office ka oo aad application buuxin jirtay oo aad picture ka geyn jirtay and then fiiga meesha ku bixin jirtay and then postada ay qaadi jirtay waxa laga dhigay amaba balan inta ka samaysato expedited passport agency oo boobsiinaysa oo lacag extra ka qaadaysa ka samaysan jirtay balan oo laga yaabo sometimes in state ka soo duusho state kale u soo duushaba oo office kale waxa hadda suurtagal ah in aad completely waxa dhan online ka ka buuxsato you can fill out the application online ka picture kaaga waa upload gareyn kartaa and then fiiga waa ku bixin kartaa bay yiraahdeen online ka naagta u hadashay state departmentiga ayaa waxay tiri applicants can pay upload a photo and complete the application without ever having to step a foot in an office adigoo aan xafiis imaanin ayaad waxa dhan dhamaysan kartaa online ka ayaa laga dhigay passport renewal ka systemka marka shuruud yar ayaa ku xiran shuruudaasna waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxa ay tahay this modernized program ka hadeer ay isticmaalayaan oo waxay sheegeen in ay u rabaan dadka 25 sano ka weyn so qofka 25 sano ka yar yahay eligible matid inaad online ka renew garayso you have to do the traditional way inaad raacdo waaye oo lagu arko halkaas ama postada ka buuxsato ama passport agency ka buuxsato laakiin haddii aad 25 and over aad tahay waxa eligible u tahay inaad online ka buuxsato completely everything online ka samaysid application ka buuxinaysa photada ku upload gareynaysa fee ku bixinaysa and then you send it in so actually is weydiiyay oo iyada nafteeda la weydiiyay waxa waaye maadaama online laga dhigay ma buuxin ma soo dedejinaysa timekii framekii hore oo ahaa 6 to 8 weeks in la sugo ma ka soo dedejinaysa waxay ku jawaabtay in dadka maadaama dadka Mareykanka ah oo baasaboorada haysta ay hadda almost half of America ay yihiin timekii hore bay ku istigareynayaan oo ah 6 to 8 weeks ki so this online process does not expedite ma boobsiinayo laakiin wuxuu fududeynaya in aad gurigaaga joogo baasaboorkaaga renewal ku samaysto waxay sheegtay in 1990 oo kale tusaale ahaan 5% of Americans ay passport haysteen 95% is passport haysan that's why process ku u fududaan jiray boobsisna waxa laakiin hadda half of Americans dadka Mareykanka sheegta half-kooda intaas oo milyan ah 400 milyan almost 200 milyan baa waxay haystaa bay tiri passport iyo ka badan ba so maadaama processkaas marka uu badan yahay dad badan oo ka dhacayo ma expedite gareynayo 6 to 8 weeks ka sugaysa laakiin waxay ballan qaaday oo ay sheegtay in ay haddii qofka online uu ka samaysto much faster than that inay ku soo dirayaan passportka oo hadda dad fara badan ay sidii maartay caadiga ahayd wax ka badan ka degdegsiyo badan ay tahay processkan online uu ka badan yahay ka fastsan yahay ka wada processkii hore laakiin waxay sheegtay in ay ku istigareynayaan wali 6 to 8 weeks kii hore oo ay hore u jiray so haddii rabto inaad buuxsato passportkaaga renewalkiisa online ka dhigato you can do it state department website kooda galaysa renew my passport ba taabanaysa and then application ka meesha ku jira already online ka ku buuxinay saasa u samaysanaysa insha Allah taala don't forget to share the video that maartay nagu cusub tahayna subscribe to the channel wa mahadsantiin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh